falimaha rasuullada cutubka 11 haddaba rasuulladii iyo walaalihii yuhuudiya joogay ayay waxay maqleen in dadka yuhuudda ahayna ay ereygii Ilaah aqbaleen oo markii butros yeruusaalem yimid kuwii ka mid ahaa kuwii gudnaa ayaa la murmay isagii oo waxay ku yidhaahdeen waxaad u tagtay niman aan la gudin waadna la cuntay laakiin butros wuxuu bilaabay inuu sheekadii ugu sheego siday isugu xigtay oo wuxuu yidhi anigu waxaan joogay magaalada Yaafa la yidhaahdo waan tukanayey markaas waxaan khilaawo ku arkay riyo oo ahayd weel soo degaya sida shiraaq weyn oo kale oo afartiisa geesood samada lagaga soo dejinayo wuuna ii soo dhowaaday oo markaan aad u fiiriyey ayaan ka fikiray oo waxaan arkay xayawaankii afarta lugood lahaa oo dhulka iyo dugaagta iyo waxa gurguurta iyo haadda cirka oo waxaan maqlay cod igu leh kac butrosow gowrac oo cun laakiin waxaan yidhi saas yaanay noqon rabbiyow maxaa yeelay wax xaaraana oo aan nadiif ahayn weligay afkayga ma gelin laakiin markii labaad cod baa samada ka soo jawaabay oo yidhi wixii Ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin taasna waxay dhacday 3 goor markaasaa dhammaantood mar labaad samada kor loogu bixiyey oo bal eega markiiba 3 nin baa istaagay gurigaan joognay hortiisa kuwaasoo la iga soo diray kaysariya ruuxuna wuxuu ii sheegay inaan raaco iyaga anoo aan shaki lahayn oo 60 walaalahayna way raaceen waxaanan galnay ninkii gurigiisii markaasuu wuxuu noo sheegay siduu gurigiisa ugu arkay malaa'igta taagan oo leh Yaafa cid u dir oo uga soo yeedh Simoon kan la yidhaahdo Butros kaasoo kugula hadli doona hadallo aad ku badbaadi doontid adiga iyo dadka gurigaaga oo dhammaba oo kolkaan bilaabay inaan hadlo ayaa ruuxa quduuska ay ku soo degay iyaga siduu bilowgii inoogu soo degay innagaba markaasaan xasuustay ereygii rabbiga siduu u yidhi runtii Yooxana wuxuu dadka ku baabtiisay biyo laakiin idinka waxaa laydinku baabtiisi doonaa ruuxa quduuska haddaba haddii Ilaah iyaga siiyey isku hadiyaddii siduu inoo siiyey markii aynu rabbi ciise masiix rumaysanay anigu kumaan ahaa kaygan Ilaah diidi kara oo markay waxyaalahaas maqleen ayay doodii ka aamuseen Ilaah bayna ammaaneen oo waxay yidhaahdeen haddaba xataa dadkaan yuhuudda ahayna Ilaah baa siiyey toobadkeen inay nolol helaan haddaba kuwii kala firidsanaa dhibaatadii kacday Istefanos aawadiis waxay u socdaaleen tan iyo Foynike iyo Qubrus iyo Antiyokh iyagoo aan ereyga kula hadlinina yuhuudda oo keliya mooyaane laakiin waxaa jiray qaar iyaga ka mida oo ahaa niman reer Qubrus iyo reer Koronaayo ahaa kuwaasoo kolkay Antiyokh yimaadeen xataa Giriigiina la hadlay iyagoo ku wacdiyaya Rabbi Ciise gacanta rabbiguna waa la jirtay iyaga oo kuwo tiro badan oo rumaystay baa rabbiga u soo jeestay oo warkii iyaga ku saabsanaa baa wuxuu gaadhay kiniisaddii Yeruusaalem ku tiil markaasay Barnabas tan iyo Antiyokh u direen kaasoo farxay markuu yimid oo arkay nimcada Ilaah wuxuuna kulligood ku waaniyey inay rabbiga ku xajistaan niyad qalbiga ka timid maxaa yeelay nin wanaagsan buu ahaa oo waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska iyo rumaysad dad badan baana rabbiga u kordhay markaasuu Tarsus tegey inuu Sawlos ka doono markuu soo helayna ayuu Antiyokh keenay waxaana dhacday inay sanad dhan kiniisadda la urureen oo ay dad badan waxbareen oo meeshii ugu horraysay ee xertii loogu yeedhay masiixiyiin waxay ahayd Antiyokh wakhtigaas waxaa Yeruusaalem ka yimid nebiyo inay Antiyokh tagaan markaasaa mid iyaga ka mida oo Agabos loo odhan jiray ayaa istaagay oo wuxuu ruuxa ku sheegay in abaar weyni dunida ka dhici doonto taasoo dhacday wakhtigii Kalawdiyos markaasaa mid kasta oo xertii ka midihiiba sidii tabartiisu ahayd wuxuu goostay inuu
caawimaad u diro walaalihii yuhuudiya jooga oo sidaasay yeeleen oo waxay waayeelladii ugu sii dhiibeen gacanta barnabas iyo sawlos